xariifkan gabadhan ayuu wuxuu ku dhahayaa kaalay kobahan ii xir ileen waa mid tuug ah aan gacanta go'oneenin kadibna boorsada ayay u dhiibaysaa boorsadii ayuu wuxuu kala baxayaa lacag gabadhan iyo wiilkan ayaa arkayaan asagoo lacagta kala baxayo boorsada kadibna kobihii markay u dhamaysay ayuu boorsadii ku wareejiyay ayadoo faraxsan ayay baxday xariifkan wuxuu ku farxay lacagta uu ka dhacay gabadha kadibna asagoo lacagta shumina ayuu sii tagay kadibna wiilkan iyo gabadhii way tashteen markaas wuxuu ku yiri hoo mobilkan agtiis markaad tagto isku mashquuli oo mobilka markaad ku mashquuliso anigana lacagta ayaan jeebkiisa ka soo saarayaa gabadhii waatan mobilkii ay ku mashquulinaysaa xaafadan ii tilmaam ay leedahay xagee waa xaafadan kadibna ninkan lacagtii ayuu jeebkii kaga soo saaray kadibna gabadhii way tagtay iyo wiilku way israaceen hadda wiilkii iyo gabadhii waxay qorsheenayaan habkii ay gabadhan lacagta ay ugu celin lahaayeen markaasuu leeyahay ku mashquuli telefoonka xaafadan ayaan rabnaa xagee ku taalaa sidaa ku dheh kadibna xariifkii waa kan uu soo orday gadaal ayuu maray gabadhii intay ku mashquulinaysa telefoonka oo xaafadda ay ugu tilmaamaysa ayadana lacagtii ayuu wuxuu ugu celinayaa boorsadii fadlan muuqaalkan loofta ka baqiilna oo na sii sheer gareeya beejkeena youtube-ka bariiro barwaaqoosna booqda oo hal subscribe inoo reeba muuqaalkan waxaa idin soo diyaariyay cabdulcasiis xariifkan gabadhan ayuu si zaa'id u jecel yahay wuuna barbaryayaa balse laakiin ayada ma rabto ee meel kale ayaa u muuqato kadibna dharbaax ayay ku fidinaysaa markay dharbaax ku fidiso uu ka soo dhaqaaqa ayaa marka asagoo u noqon rabo ayaa saaxiibkiisa qabanayo wuxuu leeyahay iska daa waa iska adduun waxaani iska daa qoftan qof ku rabta maahan waa u jeedaa qof kale ayay u shidan tahay iska sawir saaxiib calooshaada xiro noloshaadana ha ku qamaarin